marka qof sideedaba gumaysi ku jirto oo guri islaameed joogtaa sharaf ma leh xuquuq ma leh muxuu ah ciisi ma leh marka saaka waxaan rabnaa inaan balano aniga wad ii jeedin 7 sanaan jira inaan qodaxda taagan hormar walba afka ka qayliyo awoodeydu waa intaas marka waxaan rabaa qof walba oo anaga naga mid ah ama ha joogo ama maqnaado cadawgaas inuu ku bixiyo awoodiisa ninka xoolo haysta uu ku bixiyo xoog lagu bixiyo aqliga talo lagu bixiyo dhiig lagu bixiyo intaasan ku guuleysan karnaa haddaan maanta joogi lahayn intaa ka kamid ah dhulkeeni inta wax badan ka hormarsan ka sharaf badnaa lahayn marka waxaan ku dardaarmaynaa dhalinyaradeena yaatihiin xooggeena yaatihiin ciidankeena yaatihiin waxaan rabnaa inaad maaragtay muxuu ahay dadkiina xoreysiin sharafta kaliya oo waxa taariikhda gala waxa ugu fiican qofku inuu dhigiisa bixiyo hadda saad ogtihiin xalane aad maqasheen ninkaas xalane la yiraahdo waxa waa askari aan lahayn garaado dhan calankiya laga soo cararay asoo babaha inta kaliya ismaadimo tagay waana ku dhintay runtii taariikhdaas marka reebay man u malaynayo inuu aakhire seegayo janno ilaahay iidankiis marka qofka nimankaas ku dhintaaho dagaalkooda ku dhintaaho wallahi sida culimada sheegay aaro janno hadda adduunkana wax laga qaadayo ma jiraan marka waxaan rabnaa niyad inaan ku dagaalano xoolaheena ku bixino xooggeena ku bixino dhiiggeena ku bixino waa ogtihiin oo saaka taaka dhulaho uu leeyahay qadan mursada ay leedahay oo banaano ma jirto haddii laga reebo kuwa koonfur naga jira marka ayaga laftooda saameynay ku leeyihiin marka waxaan rabnaa saaka inaad u dagaalantiin sida hore ka hufan ka wanaagsan ka qiimo badan annaguna waxaan diyaar u nahay oon idinku buurinaynaa inaan tabarteena idinla joogayna insha Allah taa ka dhulaho annagu aan leenahay intay jawaab haystaan wallahi alcadiin idinla joogayna mujeeda marka waxaan rabnaa adeerayaal inaad saas u ogaatiin dhalinyaraatihiin fursadda kaliya waxa haystaa waa idinka maxaa yeelay qofka shaybka ah waxba laga yaabaa in waqtigiisa dhamaado adduunka waxa uu ka dhameystay laakiin kulligood ordanaati marka inaad gumaysiga iska qaadiina sharaf ku yeelan kartiin marka ma ahan in qofka uu laftiisa oo xornimada uusan u baahnayn laakiin waxa laga rabaa waxa lagu xoreeyaa sembir waa dhalinyaro dadku waxay u badan yihiin waa dhalinyaro boqolkii waxa la yiraahdaa bahalkii 75 waa dhalinyaro marka qofka dhalinyar oo badan oo xoog leh oo firfircoon kaasa xornimada aad uga faa'iideyso marka adeerayaal waxaan ku ballamaynaa waxaan isku boorinaynaa waxaan isku dhiirigelinaynaa inaan saaka cadawgaas ku jihaadno haddaad jihaad maqasheen dagaalkaas waa jihaad wallahi aan ku dhaartay inaan beeno ku jirin marka nin dalkiisa maqan yahay dadkiisa maqan yahay meel ku nasta iyo meel ku sharfanaadna midna ma haysto marka saasaan ku ballamaynaa waana mahadsantihiin aadaw bilaahi tawfiiq marka ugu dambeysana ma aan noqon doonto saaka inaan ballanaa haddii alla idmo waa joogtayno ahaa doonta insha Allah dhiirigelinta iyo isboorinta iyo maaragtay joogtayno ahaa doonta biidnillaahi kariim